maamadii hadda su-aasha dhagta iigu sheeganaysa waxay tiri annagoo baadiyo joogno wadaadkayga hadalan aad uga xanaaqay dhahay wuxuu yidhi nijaas dhashaa tahay cuqdad baan qalbiga kaga qaaday waxaana muddo raadinaya inaan ogaado xukunkeeda sharciga ay diinta islaamka ka qabta inuu qofku saa ku dhaho su-aasha labaad. السلام عليكم شيخ waxaan rabay inaan ku weydiiyo bishii laba jeer waxaan tagaa qabriyaha anoo isleebal naftaada xasuusi inaa one day halkan imaan doontid marka ma dambi bay igu tahay su-aasha kale qabriyaha aan tagayo laba walaalahay baa ku aasan waan u duceeyaa marka ayaga miyay maqlaan dadka yani miyay maqlayaan intaas baan rabay نعم سؤال saddexaad. بسم الله سؤال waxaa waaye ilmaan walaalo ahayn baa wiil walaalku intay shirqooleen bay kow ka siiyeen marka aniga xiriirkiina waan jaray ma xiriiri mana salaami marka shariicada islaamka maxay ka leeyahay su-aasha labaad maama eedaday ah oo xanuunsan maskaxiyan xanuunsan ayaa gabar 5 jir ah aan ka qaadanay marka gabadhii aabaheed waan ka siweynay aabahay hooyaday soo korsatay aabahay magac loo dhigay maadaama Kenya la joogo oo documents loo baahan yahay school loo baahan yahay aabahay mana dhalin gabadhi hadda gabar weynaatay oo waxa waaye waa la qabaa marka sharci islaamka muxuu ka leeyahay jazakumullahu khayr jazaa sanaykum. su-aasha gabadha ay weydiisay ninkeedu uu caayay ama uu hadalka xun ku sheegay nijaas dhashay baa tahay waa hadal xun oo cay ah oo aflagaada ah nabigeennuna sal alla alay wasalam wuxuu sheegay ruuxa muuminkaa inuusan caytamin oo lacnadda iyo caydadu ma aha dhaqan ruux muslima ma aha marka inuu iyadii caayo xaaskiisa ah haddana waalidkeed caayo oo ciddii dhashayna uu haddana nijaaso ku sheego waa hadal aad u qallafsan oo edabdarro ah waana dembi weyn waaye amaa iyaga xidhiirkii ka dhaxeeyey iyo xadhiggii ka dhaxeeyey iyo inay nin iyo xaas isu ahaayeen waxba ma yeelayso oo caytanka ama ninku xaaskiisa caayo ama iyadu ay ninkeeda caydo waa uun dembi weyn laakiin guurkii ka dhaxeeyey waxba ma yeelayo marka isaga unbay u baahan tahay inay iyaduna cafiso dadkii kale uu caayayna uu cafi weydiisto ilaahayna u toobad keeno taa mid weeye midda labaad gabadha qubuurta siyaarata bishii 2 goor ma bannaan tahay jawaabtu waxa weeye xadiid baa jira uu nabigu leeyahy sal alla alay wasalam lacana allahu zawaaraati alqubuur lacnadda ilaahay ha ku dhacdo dumarka siyaarada qubuurta ku noqnoqda oo badsada sida saxiixa ah dumarku qubuurta way siyaaran karaan iyagoo u siyaaranaya inay dadka muslimiinta dhintay u soo duceeyaan dhanka kalena in qalbigooda ay ku soo jilciyaan way soo siyaaran karaan laakiin inay badsadaan ma aha muddo markaad joogto oo mar soo siyaaro laakiin ha badsanin sida xadiidkaa laga fahmayo qodobka xiga oo isla su-aashaasa dad ehelka ah oo meesha ku aasan oo ay u soo ducayso sax weeye waa u soo ducayn kartaa sida xadiista nebiga ku sugan sal alla alay wasalam laakiin ma ku maqlayaan ayaga markaad salaanto salaantii ma kaa qaadaya waa masle khilaafiya waay axaadiista qaar baa laga fahmayaa inay salaanta ay maqlayaan qaarna culimadu yihiin maqalka soo arooray dadka dhintay inay wax maqlayaan waa xaalada khaasa weeye mar walba ma aha qaarna waxay leeyihiin cid kastoo u tagta way maqli karaan markay salaamaan waxaana laga qaadan bay leeyihiin khitaabka marka loo tago qubuurta assalaamu calaykum baa la leeyahay assalaamu calaykum sidii ruuxku maqlayoo kale loo salaamoo kale ayaa loo salaamayaa oo loogu ducaynayaa marka waa masale khilaafiya weeye culimmaduna qaar waxay leeyihiin waa maqlayaan qaarna ma maqlayaan xaaladaha qaarkood inay maqlayaan nascad baa ku soo arooray oo maalan marka la aaso intaan laga kala tegin